لاعب كهر ناديga FC Somaliland iyo horyaalka Irir Soomaali Hoolinia ayaa la kashashada ka soo muuqday isagoo ku dhawaaqay inuu gabi ahaanba ka baxay qandaraaska kula jiray kooxdaas laacibka oo lagu bartay inuu baraha bulshada ka soo muuqdo xilligii dagaalkii Khaatume State iyo Somaliland laacibka ayaa isagu wax uu ahaan jiray dadka dagaalka kaga qayb qaata suumta ama waxa weey maqal arag fogaanta kaga qayb qaata ayaa isagu laacibkaasi wuxuu ku dhawaaqay inuu gabi ahaanba ka baxay laacibka ayaa ka hor inta uu kooxda ku soo biirin waxyaaluhu ballan qaaday waxa kamid ahaa inuu keeni doono koobka Champions League dhagaha waaweyn ee ictiraafka oo kooxdu la dhibaataysnay lana il daray raadintiisa 22 sano u dambeysay laacibka ayaa u sheegay kooxda in meel qadan laga raadinayo Champions League sida European Unionka African Unionka UN-ta iyo waxa weey Arab League laacibka ayaa sheegay in qaldan tahay formuladaasi laga raadin doono Champions League isaguna uu ka keeni doono isku xil saari doono deegaamada Masangawey Masjid Ali Gaduud Ceelbuur iyo Mahaday laacibka ayaa isagu ku dhawaaqay in kooxdiisii kadib 25 August markii ay guuldarro weyn ka soo gaadheen adiga Laascaanood garoonka Gooja Cadde guuldaradii caanka ahayd kadib laacibka ayaan garoomada si aad loogu arag laakiin laacibka ayaa sheegay in gabi ahaanba uu ka fiirsan doono mustaqbalkiisa ciyaareed ee FC Hargeysa Stadium laacibka ayaa sheegay inuu ku ciyaarada garoonka Stadium Hargeysa ay aad u liidato cimiladiisu kooxduna ay guuldarrooyin waaweyn kala kulmaysay Champions League ama waxa weey garoomada waaweyn caalamiga laacibka ayaa ballan qaaday inuu qandaraaskaasi guud ahaan iyo gabi ahaanba ka baxay kana fiirsan doono ciyaarihiisa mustaqbalkiisa ciyaarada dambe kooxda ayaa in badan ku taamaysay in hesho bedelka laacibkaasi oo khadka dhexe uga ciyaari jiray kuna lahaa muhiimad weyn kooxda u lahaa kooxda ayaa muddo dheer kadib raadintii laacibkaasi waxay soo heshay oo bedelkeeda ila soo saxaatay naadiga FC Garowe laacibadii weynada uu ciyaari jirtay Mama Malyunovic oo iyadu bedeli doonta laacibkaas maadaama xeerka FIFA uusan ogoleen in lambar ciyaaryahan hore qaatay seasonka dhexdiisa ama xil ciyaareedka dhexdiisa inuu ciyaaryahan kala qaato laacibadan ayaa ku dheeli doonta magaca cusub Dobrinho oo ah abtirsan cusub oo intii hore ahayn oo ah islaantii Dobridir ee daarood dhashay laacibadan ayaa la rajeenaya inay u soo hoyn doonto guulo waaweyn naadiga kana saacidi doonto ictiraafkaas oo laga keeni doono Raas Casayr Caluula iyo Bandarbayla